ku yeelanaynaa baarlamaankaan wax ku yeelanaynaa madaxdaan wax ku yeelanaynaa ciidamadan wax ku yeelanaynaa dubaadda waaweyn baan wax ku yeelanaynaa barya ma noqonayno haddaan noqonno haddii ahlu duruq afkooda loogu hadlo maalin walba dad aan u munaasib ahayn oo xoogaa koob shaaha ku raadsanaya ahlu duruq ma qaadi karto koob shaaha qof la siiya waxaan u baahannahay ilaahay baa raasiqa wax walbana na siiyey in aan u baraarugno oo wax alla wixii rifcadanada keeni kara cid maanta na barido maahane soomaaliya ruuxii wax ka doonaya ahlu duruq inuu ku soo xirmaa waajib madaxtinimo kii rabaa ahlu duruq ha ku soo xirmo laakiin waa hadday munadamiin yihiin oo tandiim leeyihiin oo dad habaysan yihiin oo qiiro leeyihiin oo ay dhaqaaqayaan waxaan u baahannahay raas kambooni haddii hal ruux oo ahlu dariiqa ah laga taabto raas casayr inaan ka kacno oo aan hadday noqoto af iyo adinba xataa hadday kalifto aan dagaal wada galno intaasaan u baahannahay intaasaanan idiin soo jeedinaynaa waana nadaamsannahay laakiin dadka murjifiinta ah oo ordayo wax nagu dhex wadana inaanu iska joojinno ciziganagana aan soo ceshanno cizigii diinta ilaahayna aan soo ceshanno intaasaan isfaraynaa mashaa'ikhdanada dad u soo baryi mayno ammaankanaga annagaa samaysanayna waxaan haysannaa ciidan waxaan haysannaa juyuush waxaan haysannaa hub waxaan haysannaa wax kasta hubkanagu waa hub silmi awey waa mid nabadgelyo ah waa midaan dadka lagu dhacayn waa midaan ummadda lagu xaqirayn waa mid aan xoolaha dadka lagu dhacayn weeye waa mid ummadda lagu badbaadinayo mashaa'ikhdanadii iyo madaxdanada iyo islaamka iyo caqiidadanadana aan ku ilaalinayno qole noo diidaysaana ma jirto dawlad hadday jirto waa nagu garab taagan tahay wax alla wixii qoladii aanun ahayn masiibo loo soo diray dalka aan ahayn oo dhan waa nagu garab taagan tahay haddana faraj baa ilaahay noo furay laakiin fursadda inaan ka faa'iidaysanno ayaan rabnaa waxaan jeclahay inaanan idinku sii dheerayn mashaa'ikhda waqtiguna waa nagu dheeraaday laakiin hal ruux oo kasta oo idinka midihi ilaah baan idinku dhaarinayaa inuu sharafta ahlu dariiqa soo celiyo ha u istaago kaligaa nin walba u istaag inaad ahlu dariiqa sharaftooda soo celiso ummadda kale oo dhan markaasay ku raacaysaa waxaan jeclahay inaan intaa ku soo gaabiyo intaa kaliyana nooma noqon doonto waxaan insha allahu muxaadaraad badan baan samaysan doonaa aniga qasdigaygu ma ahayn inaan hadda mawcudo soo jeediyo mashaaikhdii oo dhan baa joogta waana la soo jeediyey haddii ahalna umada ihiba anigu dad saasana kumaan ihi laakiin waa uu nooca xoogaa iska adgudo waxaanu qalbigaan waxaan ka jeclahay in ahlu sunna caalamka ugu korayso xaqiiqdana waa ugu koraysa xaqiiqda markii la yara waa ugu koraysaa laakiin in dadnimo xumadanadu ay hoos u dhigto ayaan diidaya waxaan hal kelimaan idin xusuusinaya hal kelimo xamar dhexdiisa waxaa jooga niman filinka shanaad niman ka soo tegey oo aan ehel ku lahayn oo aan qaraabo ku lahayn oo qof ay ku leeyihiin la arag caqiidada ayaga tooda oo weliba aan caqiido toosan ahayn inta kula socota yuu isku hadlaynaya markaasuu siduu doono u hadlaya siduu doono cidduu doono caayahaya caqiidadii islaamku caayaya duruqu suufiyu caayahaya mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu shirki ku sheegaya wuxuu intaa ku dhiiranayaa qabiil difaacaya isku hadlayn maayo maxaa yeelay markii horu ka tashaday wuxuu isku hadlaynayaa dadka asaga la jooga oo ku caqiidada ahaa asaga ilaa ay wada dhintaan aan asaga loo soo gudbi karin annagana mashaa'ikhdanadii cidaamka ahayd haddaan un qabiil usan arkin mid waliba waa gabanaya waa baqaya war maxaa la dhex taagay qabiil aan ixtiraamka nagaba oqoonin muxuu ka yaqaanaa qabiil ixtiraam sidiisa kaleeto inaan ugu ixsaan falnaa nala ka rabaaye qabiilka intii la raacdana waa wadanaynaa intii aan la raacinoo jinni kale raacdana nabadgelyaan leenahay wax dambe u doonan mayno laakiin ictimaad annagu inaan ilaahayna ictimaadnaan rabnaa inama almu'minuuna ikhwa inaan dabaqno ayaan rabnaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إن شاء الله شيخ وعدي إنه سوجيدي الله نور أنفعه ما أنت يعني واني وعدي إنه سوجيدي شيخ هذا أهل السنة والجماعة نهي تدك وقمان وإهل نقرأ الله نقدقه حتى وقتي وقتي وادير هذا
مقام وحال قاري وقت أبوه وإجازة ديباي شيخين وقت يقطب إجازة وبحنا يلا قاري أنت فرد وافق إذا أنت كلنا حفريسته مركان إجازة يلا قايمنا كتب نوحي الدعاء إدردار إن الشيخ كان كتاب ضمنا ووجع سنياي ووجع جدا ووجع سنياي جدا وجرى الشيخ فاتحة وكان ما يسير أو فاتحة بسم الله حسب المشاء العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله آمين 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 آمين